laga sii waday ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka iyo dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka dalka iyo shuruucda kale wabilaahi tawfiiq mahadsanidin mudane xasan sheekh maxamuud wuxuu noqonayaa xildhibaan golaha shacbiga ilaa iyo inta uu nool yahay waxaan allahu subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa cumro dheer cibaado leh oo uu ugu adeego qarankiisa inuu alla siiyo sidaasna waxaa qaba qodobka 64 ee dastuurkeena faqradiisa 4 ee dastuurka federaalka xildhibaanka ha soo saxiixo markaa waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan idin ka mid ahay xubin baarlamaanka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan inaan ahay mar allaala iyo wixii nin xildhibaana waajibka xildhibaan kasta lagu leeyahay lagu leeyahay anaan gudan doona hadii la yiraahdo dhammaan xildhibaanada baarlamaanka fadhiya dhammaan waa saaxiibaday waa walaalahay mid maxaan ku raadaay aan ka didsanahay iyo mid aan maxaa ahay u dhawahay ma jiro beejkii 4 sano iyo beejkii doorashada iyo beejkii campaign-ka waa la laabay waa dhamaaday beej cusub oo Soomaaliyeed cusub hore loo socdo aha furan kaas ayaanan isku wada ognahay anigana aan idin kala shaqeynayaa odayna aan idinku ahaanay hadii aan aad iyo aad u mahadsantiin